الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وناكسن سومالويني ميلبا أجوكتان عشر كان مانتو عشر مهم جريتانك بني آدمك كاسو basic needs باهدا أساسية basic needs باهدا أساسية أما احتياج الأساسي لكل بني آدم. biological نفلي باهدا أساسية أو قفل بق أو نور احتياج الأساسي لكل حي. maxay tahay baahida asaasiga qof walba nafley u baahan yahay؟ kow cunto food cunto akal food cunto akal water biyo ma water biyo ma shelter hoy ma'wa shelter hoy مأوى cloth در ملابس cloth در ملابس. kaas waa jaranjartii ugu sarreysay waa number 1. wuxuu u baahan yahay qof walba oo nool baahidiisa waa cunto cabis meel uu hoydo iyo dhar uu gashto. maxaa ku xiga number 2 safety badbaadid inuu badbaado ku helo meeshaas uu ku nool yahay. maxaa ugu horeeya caafimaad. maxaa number 2 maaliyad. maxaa number 3 amni. waa Maslow hierarchy waa 5 dabaq waa 5 steps. maanta waxaan qaadanaa step 1 and 2 oo ah biological need and safety. basic need or every human being it needs it what basic need باهدا أساسي احتياج الأساسي لكل كائن حي biological نفلي أحياء. رقم 1 food. رقم 2 water. رقم 3 shelter. number 4 cloth عنتو بيو هوي در أكل ماء مأوى ملابس. marka labaad safety badbaado health caafimaad finance maaliyad security amn. jumladeenu gashanaynaa every human being needs a basic need. every human being need a basic need. bani aadan walbo nool wuxuu u baahan yahay baahida asaasiga ah. كل كائن حي محتاج احتياج أساسي. What's important for every biological maxaa muhiim u ah qof walbo xay ama kulli nafley xay ah. شو المهم كل كائن حي؟ food it's a main one. cunto waa ka ugu horeeya food waa ka ugu horeeya main waa muhiim. الأكل مهم جدا وبعد الأكل water ماء. you have to have food then you have to have water. waxaa u baahantay cunto iyo biyo si aad u noolaato la-aantood ma jiraysa nool. محتاج أكل ومحتاج ماء وبعدين محتاج مأوى محتاج shelter. you have to have shelter. waxaa u baahan tahay hooy ma'wa. then qofku markuu cunto helo biyo helo meelu seexdo uu helo uu dhar helo lambar 2 muxuu u baahan yahay safety badbaado salaama. you need a safety
waxaad u baahan tahay badbaado ama meel salaama. meelaha dagaalada maxaa looga soo cararayaa? waa ammaan la-aan, waa badbaadis la-aan. marka meeluu qofku badbaadayo daruuri u tahay inuu joogo meeluu ku badbaado. health, caafimaad leh ama uu caafimaad ka helayo, because health it's important as well. caafimaadkuna waa shay muhiim. الصحة ضرورية جدا. finance maaliyad أو maaliyة oo ah wuxuu ku noolaado ama uu kusoo iibsado cuntadii iyo biyihii, hooyga uu deganaa ijaarka isaga baxsho, dharkiisa uu kusoo iibsado, waa taas maaliyadda. waa wax quutulyoomkiisa ah. security, inuu amaan helo. why security is important? because without security you cannot, you always be 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 worried. amaanka muxuu daruur u yahay? wuxuu daruur u yahay qofka suu nafsadiisa u dego. haddii kale qofka mar habeen maalin wuu baqayaa, goormaa wax soo dhacayaan, goormaa wax dhama. si u dego waa inuu meel amaan la joogaa. marka basic need waa basic need iyo psychological need. basic need waa labo, waa biological iyo safety. biological oo ah food, water, shelter and cloth. safety waa health, finance and security. taas waa asaaska qof walbo bani aadama ama kulli kaa'in xay. xataa xayawaanku u baahan yihiin, xataa geedaha. geedka cuntadiisa maaha cuntadeenoo kale, biyuu u baahan yahay. laakiin xayawaanka iyaga laftooda cunti u baahan yihiin. kii coos cuni lahaa, kii hilib cuni lahaa. هذه basic need of every كائن حي. كائن حي wuxuu noqon karaa bani aadam, wuxuu noqon karaa xayawaan, wuxuu noqon karaa geed. intaasaan kusoo gabagabaysanana casharkeena. aad iyo aad aan u mahadsantihiin sidii xalqadii live-ka ayada ii dhiirigeliseen. insha allah waxaan dhamaystirinayaa nebi aadan oo wax ka dhiman yihiin iyo nebi ilyaas oo nebiga labaad ku xiga ah. khayr badan aan idiin rajaynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.